4 subaxnimo neecawda dhacaysa sirta ay xambaarsan tahay in yar oo dadka ka mid baa og waa waqti uu kaco qofka Ilaahay tabaaraka wa tacaala si dhab u jecel oo doonaya xiriir saafi oo nadiif ah inuu rabbigii la lahaado waa waqti uu kaco mid ka baahan ammaanka ka baahan cuntada ka baahan dharka ka baahan awlaadda ka baahan ilma aadam oo dhan way baahan yihiin waa waqtiga uu kaco qofka danta leh xaajadiisa Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u bandhigto waa waqtiga uu kaco midka gartay inay baahidiisu ka weyntahay jiibkiisa iyo daalkiisa waa waqtiga aysan kuwa guulaystay adduuniya aakhiraba saacaddoodu markay qayliso aysan joodariga dib ugu laaban ama indhaha dib isugu qaban waana waqtiga ay qaataan kuwa guulaystay go'aanka noloshooda ugu adag uguna qaalisan maxaa yeelay waa farqiga u dhaxeeya iyaga iyo kuwa guul daraystay walaalahayow ma garanayo dareenka aan rabo inaan sharaxo in aan erayo ku habboon idinla wadaagayo inuu qofku indhaha markuu kala qaado subaxii uu yiraahdo alxamdulillaahi alladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi an-nushuur oo Ilaahay ku mahadiyo naftan loo soo celiyay oo uu joodariga ka dego kadibna musqusha tago oo uu si wanaagsan afkiisa u carfiyo u cadaydo kadibna dharkiisa kan ugu quruxda badan uu gashado isagoo feeraystay intaan hadda soo sheegay waa inta aynu xafladaha u samayno Allah subxaanahu wa ta'aalana dharka kuwa ugu wasakhda badan oo ugu jeexjeexan oo ugu duugsan baan la hor istaagnaa Ilaahay tabaaraka wa ta'aala intuu ku nicmeeyay taa kaama mudna qofka doonaya adduuniya aakhira inuu ku guulaysto sirta nolosha guusheedu meel dhow bay taala meesha aynu ka raadinayna ma taal hana noqonin dadka maangaabka ah oo yiraahdo hebel wuxuu doonuu sameeyaa wixii la rabana waa la siiyaa waxaad ogaataa qof Ilaahay aan ku xirnayn wax walbana la siinayo haddaad aragtid ha u qaadanin in uu qofka khayr la damcay siduu doonuu Ilaahay u caasiya midig iyo bidixba waxaad adigu maanta jeclaysanaysid baana laga dhigay waxaad ogaataa qofka marna isbarbar dhigin laakiin ma garanayo erayo aan ku sharaxo dareenka qofku uu dareemi karo intuu sidaa u labisto inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hor istaago oo uu Allah tabaaraka wa ta'aala u sheegto danta uu leeyahay oo uu weydiisto Ilaahay waxa uu noloshan adduuniya midda aakhiraba uu doonayo ma garanayo farxadda qalbiga ku jirta erayo aan ku sharaxo oo gaar ahaan waliba ragga intuu baxo masjidka tago oo salaada subax ku tukado 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo meeshuu ku tukaday inta fariisto Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xuso oo uu kor gacmaha ugu taagto baahidiisa oo dhan haddana uu mar kale u sheegto masjidka markuu ka soo baxo neecawda uu dareemayo ee carafta badan ee aroortii kaliya socota ee barqinkii socon iyo qorraxda quruxda badan ee soo baxaysa markaa intuu daawado uu haddana aayaadka waaweyn Ilaahay inta arko qalbigiisa farxadda ku jirta iyo raynraynta uu dareemayo ma garanayo erayaan ku sharaxo ma garanayo qofka dan iyo xaajo leh gabadha u baahan wiil wanaagsan oo saalix oo toosan oo ay jeceshahay oo si dhab u jecel oo waxa ay nolosha adduunka doonayso dhan siiya ma garanayo gabadha noocaasi saacadda waxa hurdisiyay joodariga la jiifto ma garanayo walaalkayga Soomaaliyeedow adigoo doonaya xaas wanaagsan adigoo doonaya ubad wanaagsan adigoo doonaya xoolo adigoo doonaya sumcad adigoo doonaya inay adduunyadu ku jeclaato
adigoo doonaya inuu allah tabaaraka wa tacaala uu ku jeclaado, adiga oo doonaya inaad tusaale lagu dayan karo oo dadkoo dhammi ay jeclaystaan aad doonaysid inaad dadka u noqotid. ma garanayo waxaad saacadda joodariga u jiiftid. ma garanayo ninka ragga ahow waxaa kuu diiday inaad masaajidka ku soo tukatid iyadoo ilaahay caafimaad ku siiyey, iyadoo ilaahay gaadiid ku siiyey. waxaan waxyaabaha aadka looga naxa ah in aad masaajid tagtid aadna aragtid 2 saf oo keliya oo weliba mid uu kala baryahay inay taagan yihiin oo odayaal u badan. maalinka jumcada subaxnimadiisa hore duhurkii markaad timaadidna dhallinyaro ayaad meelan laga istaago aysan lahayn. talow kulligood ma habeenkii bay shaqeeyaan mase cisbitaalladii ku jireen? aaway dadkii lahaa waxaan doonaynaa inaan guulaysanno adduuniya aakhiraba? aaway raggii iyo dumarkii xalay naftooda ugu sheekaynayey cishaha markaan tukado waxaan rabaa caawa inaan dhaqso u seexdo si aan subaxii goor hore joodariga uga kaco oon uga mid noqdo kuwa danahooda adduuniya aakhiraba ka salgaara? aaway joodariyaday saaran yihiin maxaa yeelay 9 saac baad xalay seexatay. kadibna shaydaan baa kuu yimid wuxuuna kugu qanciyey wakhti ma haysida iska seexo oo naftanna sii u raaxee. markaad barqinkii soo kacdayna adoo dhabarka iyo madaxu ku xanuunayaad kacday. shalayta waxaan hayna hurdada kamaad helin. waxaanse walaalkay ku leeyahay, waxaanse walaashkay ku leeyahay, haddaadan naftaada adigu beddelin yaad ka sugaysaa? haddaadan isbeddelka hadda ku dhaqaaqinse haddaba goorma?